al-Idari oo micnaheedu tahay Maxamedka maamula. Casriga cusub ee maanta oo ku dhisan dimuqraadiyad iyo nidaam, way fududahay inaad ka dhex hesho hogaamiye tababaran oo u heelan hawsha maamulnimo. Laakiin mujtamac biyadiisu wada fawdo iyo qalalaase tahay, inuu kasoo dhex muuqdo ruux hogaamiye ah oo dhinac walba ka dhisan, taas ayaa ah cabqariyada saxda ah. Nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu arko hawl ama shaqo dadka ka dhaxaysa, wuxuu ku dardaarmi jiray inay sameystaan hogaamiye. Hadaladiisana waxaa ka mid ahaa sallallahu alayhi wasallam: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. haddii saddex u baxaan safar oo isku raacaan, midkood ha hogaamiyo. Nabiga sallallahu alayhi wasallam laba shardi ayuu u fiirin jiray qofka hogaamiyaha ah: 1, waxqabadka qofkaas oo ah kartidiisa iyo jacaylka. Nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale qaab xikmadeysan oo dadka dhan ay ku qancaan ayuu ku xalin jiray isqabqabsiga iyo khilaafaadka uu arko, sida dhacdadii al-Hajar al-Aswad, dhagaxii Kacbada markii la saarayay ay qabaa'ilada isku dagaaleen, iyo sidoo kale dhacdadii Nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu u hijrooday Madiina oo la isku qabsaday meeshuu ku dagi lahaa oo u dhaafay hashiisii meeshay fariisato inuu dagi doono sallallahu alayhi wasallam. Muxamedul Baliiq oo macnaheedu tahay midka hadalkiisa toosan yahay. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid mowduuca uu ka hadlaba, hadday ahaato sheeko, wacdi, duco, waxay noqotaba, hadalka sida uu yahay u gaarsiiya oo ku deeqsiya hadalkiisa. Waxaa lagu tilmaami jiray hadalkiisa inuu ahaa sidii xariiq toosan, macnaha isku xirka hadalka markii laga fiiriyo. Muxamed as-Sadiiq oo lagala jeedo Maxamedka saaxiibka ah, wuxuu ahaa suubanaheena sallallahu alayhi wasallam ruux dhimrin badan, la jecel yahay, wanaag badan, naxariis badan, saafi ah. Dhimrintiisu waxay tahay noole iyo mid aan nooleynba, intaba dabooshay, akhlaaqdiisu sugan tahay, ay la saaxiibeen mid sharfan iyo mid miskiin ahba. Muxamedur Ra'iis, madaxweynaha. Nabiga sallallahu alayhi wasallam madaxtinimadu wuxuu u yeelay macno saaxiibtinimo ah. Tusaale, Muxamed oo ah madaxweynaha waa saaxiibka ugu weyn dadka uu mas'uulka ka yahay ee leeyihiin. Caalamka maanta cusub waxaa arkaysaa dad ugu yeerayo in cadaaladda iyo naxariista la hormariyo naxariista. Haddaad si fiican u fiirisid, waxaa arkaysaa in sallallahu alayhi wasallam uu ku celcelin jiray arrintaas mar walba. Wuxuu dhahay, Ilaahay markuu abuuray khalqigiisa, wuxuu isku qoray in raxmadiisa ay ka badanayso xanaaqiisa. Wuxuu kaloo dhahay sallallahu alayhi wasallam, Ilaahay iima soo dirin inaan ahay mid adag, laakiin wuxuu ii soo diray macallin dadka wax bara, waxna fududeeya. Waxaa kaloo la soo wariyay sallallahu alayhi wasallam, laba xukun haddii la hor keeno, ilaa wuxuu dooran jiray midka fudud haddaanan diinta lagu xadgudbaynin. wuxuu ka dardaarmay sallallahu alayhi wasallam dadka masaakiinta ah. Wuxuu dhahay, ubquuni ducafaa fa inama turzaquuna wa tunsaruuna ilaa biducafaa'ikum. Ii keena ducafada, waxaa laydinku arsaaqo oo laydinku gargaaro ducafadiina soo maahan. Muxamed az-Zawj. Haddaan maanta fiirino, reer galbeedka waqtiguu la soo socday mugdi ilaa xilli dambe oo ay maanta horumareen, laakiin dumarka xuquuqdooda mar walba uu dayacan yahay. Halka Islaamka dumarka wuxuu siiyey xuquuq, kuwo kalena wuu ku waajib yeelay. Dhaqankeeda in la wanaajiyo ayuu faray. Nabiga sallallahu alayhi wasallam ragga kuwa ugu akhyaarsan wuxuu ku tilmaamay kuwa dumarkooda u fiican. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku dadaali jiray dumarkiisa oo wuxuu ku qaabili jiray waji faraxsan oo furan. Subax iyo galabna wuu soo wada booqan jiray. Hadduu la kala noqdana wuxuu ahaa dadka midka ugu jilicsan, ugu dhoola cadaynta badan, dhimrintiisana ku heliya, hawsha gurigana kala qayb qaata. Oo wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam, xaaskaaga oo u khidmaysaa waa sadaqo. Sidoo kale wuxuu Ilaahay dambi dhaaf weydiisan jiray hadduu u cadaalad sameyn waayo xaasaskiisa. Marka loo imaado mawduuca xaasaska badan oo Nabigu uu guursaday, mas'aladaas oo ah waxyaabaha ugu badan oo ay gaaladu Nabiga ku duraan, kaatibka wuxuu ka dhahay,
jacaylka dumarka ma ahan mid cayb ah. Nabigana sallallahu calayhi wasallam ma ahayn qof adduunka israaciyay, bal wuxuu ahaa mid ku nool nolol mutawaadic ah, isagoo ku noolaan kara nolol boqortooyo. Wuxuu guursaday Khadiija ilaa ay ka dhimatana qof kale muusan guursan. Ciqaabta xaaska markii laga hadlana, Nabiga sallallahu calayhi wasallam gacan muu qaadin, xaasaskiisana muusan furin, wuuna dhaleecayn jiray. Wuxuu dhihi jiray muusan ka xishoonaynin midkiin inuu dilo xaaskiisa subaxa hore, waqtiga dambena uu soo hoydo. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa aabbe naxariis badan, sabar badan, isagoo sujuudsan ilmaha yar dushiisa intuu koro sujuudda uu ku dheeraan jiray. Kariim ah oo weliba gabdhihiisa midka ugu karaameyn badan ayuu ahaa. Ummadda dhammaanna wuxuu ku barbaariyay naxariis, waxbixin iyo huritaan intaba. Muxammad Sayid oo ah mudanaha, Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ahaa mid u dhimriya shaqaalihiisa iyo dadka tabarta yar. Taas waxaa kaaga filan, Nabigu wuxuu ahaa mid naftiisa u khidmeeya. Maxamedul Caabid oo ah Maxamedka alla caabuda. Kaatibku wuxuu tilmaamayaa in cibaadada ay la socoto tafkiir, iimaan ah iyo camal wanaagsan ay tahay cabqariyadda asalkeeda uu lahaa Maxamedka rasuulka ah, bini'aadanka ah. Wuxuu cibaadaystay waxyiga ka hor, waxyiga kadib. Wuxuu ku cibaadaystay salaada, soonka, jihaadka, waxbixinta, cadaalad falka iyo kelinimada. Cilmigan wuu ku cibaadaystay oo wuxuu dhahay wuxuu ka fadli badan yahay salaada, soonka, xajka iyo jihaadka. Sidoo kale wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasallam hadduu dadka tujiyo mid u fududeeya oo dadka aan salaada ku dhibin, hadduu keligiis yahana ugu qiyaamka dheer. Dagaalka markii loo baxo, dadka midka ugu geesisan, dhibaatada midka ugu sabarka badan, adduunkana midka ugu zaahidsan, dadkana loogu jecel badan yahay. Sidaas ayay ahayd suubanaheena sallallahu calayhi wasallam, akhlaaqdiisa suuban. Muxamed wa taariikh, Muxamed iyo taariikhda. Kaatibku wuxuu isweydiiyey taariikhda siday u aragto Muxamed. Wuxuu tilmaamay in taariikhdu ay tahay midda kala saaraysa Muxamed sallallahu calayhi wasallam iyo kuwa u careysan. Wuxuu u qiray shakhsiyadiisa, anshax iyo akhlaaq inta adduunka joogto inuu u hogaamiyo. Saameynta haddii laga hadlana, in sallallahu calayhi wasallam raadkiisa ilaa maanta nool yahay. Caqiidadiisuna ay tahay faafinta iimaanka iyo naxariista. Adduunka intuu jirana uu yahay mid diintiisu baaqi tahay. Kaatibku wuxuu kusoo gabagabeynayaa kitaabka dhacdadii Nabiga sallallahu calayhi wasallam iyo Abuubakar ay ku jireen godka. Wuxuu ku tilmaamay inay tahay dhacdo midii ugu weyneyd ee soo marta taariikhda basharka. Halkaas ayuu noogu dhammaaday kitaabkii ahaa Cabqariyatu Muxamed uu qoray qoraaga weyn Cabbaas Maxamuud Alcaqaad. Waxaan rajeynayaa in badan ay ka faa'iidaysateen. Wixii Ilaahay iga waafajiyey waa ku soo dadaalay, wixii kaloo gaf ahna Allah iga cafiyo. Waxaan rajeynayaa inaan sidan ku wado oo nuxurka ugu wanaagsan ay idiin soo xulo insha Allah biidhnillah. Wixii talo iyo tusaalaha waa igu darsan kartiin oo comment igu soo qora. Wixii aad gafana waa isoo sheegi kartiin. aad iyo aad u mahadsantiin. Ilaahay naga dhigo Rabbi Raxmaan kuwa ku camal fala sunnada Nabigooda sallallahu calayhi wasallam oo ku dayda. Sidaas ayaan kaga tagayaa iyo kulanti dambe oo xiiso leh.